dhawaada habeen wanaagsan intii salaad tarawih soo dukatay Ilaahay ka aqbalo malmahan barnaamijka bulshada ee kala duwan muuqaalaman soo gelinin caawa muuqaalkan waxa uu kalifay inaan soo duubo Soomaaliya horta salabada socotaan adduunka waxa ka jira wax la yiraahdo muslim nacab dhawaan la socotaan wadamada Yurub waxa ka qarxay dagaalkaas u dhaxeeya Yurub qaasatan Ukraine iyo Ruuska adduunyahana soo ugu qeyliyay waa la arkay saameynta dunida ku yeeshana waa la arkay laakiin dunida waxa ay indhaha ka xirteen oo ay mar walba garab ku siiyaan Yahuuda waxyaabaha ay ka sameynayso Falastiin maanta Jimcaha salaadii khudbada kadib Masjidul Aqsa ee barakeysan ayagoo dadkii ku nasanayo ku cibaadaysanayo waxa dhacday Yahuudi inay soo weeraraan halkaana ay ku dhaawacaan ugu yaraan 150 ruux waa sida TV-yada caalamka ay soo tibiyeen runtii dunida waxa ka socda oo ay isku bahaysteen gaalada waxay tahay Islaam nacayb runtii haddaan nahay dad muslimiin ah waxa mar walba na dhibaayo oo aad noo dhibaateenayo Yahuuda waxa ay ku hayaan masjidkaas barakeysan ee Al-Aqsa iyo waliba dhammaan dhibaatada ay ku hayaan ummadda reer Falastiin maadaama lagu jiro bil Ramadaan waliba lagu jiro 15kii ugu dambeysay 10kii raxmadda iyo naxariista oo Ilaahay dadka ugu dambi dhaafayna lagu jiro waxay ka codsanayaa dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed qof walba oo daawanaya ee muuqaalkayga daawan doona inuu u duceeyo reer Falastiin inuu Ilaahay ka dulqaado dhibaatada waayo waxba lama ahan isaga laakiin dunida inteeda badan reer galbeedka iyo waliba uu ugu weyn yahay Mareykan waxa uu raali ka yahay dhibaatada ka socota Falastiin Yahuudana garab ku siinayo waxa uu hadda sameeynayaa in uu Ukraine dhaqaale ku bixiyo dhan walba ahaato dhan military iyo dhan walba ahaato inuu ka saacido si ay ula dagaali lahaayeen Ruuska la wada socono Ruuska Ukraine waxa uu madaxweynaha Ukraine waxa uu taageeraa Yahuuda waxa ay ka hayaan Israa'iil dadka ma ahan dad waalan muslimiinta waa dad aqligooda taam yahay wax walbana way ka warhayaan laakiin waxa aan leeyahay inta Yahuuda ay dhibaato ku hayaan Israa'iil dhibaatadaasna waa ay ku sii socon doontaa Ukraine oo muslimiinta ugu duceynaya inay dhibaatadaas ku sii socoto waayo waa dad jecel dhibaatada lagu hayo Falastiin wallahi sawirada qaar waa idin soo bandhigi doonaa inkastoo aan muuqaal rabin inaan soo bandhigo oo dadka aad ay ugu argagaxayaan baraha bulshada inta badan aan laga ogoleen laakiin sawirada waa idin soo bandhigi doonaa waa naxaysa waxyaabaha ay Yahuuda maanta ka sameeyeen Masjidul Aqsa marka daawado dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed yani gaalada dhan walba ay nagala dagaalamayaan maskaxan aqliyan diiniyan dhan walba ay nagala dagaalamayaan laakiin anaga hadaa muslimiin nahay badanaa ma fahanno laakiin wallahi muuqaalkii caawa wax nagu tala galay inaan qiirada iyo dhibaatada aan la qaybsano walaalaheena qaaliga ee reer Falastiin waxa idinka codsanayaa haddii uu idin soo gaaro muuqaalkayga inaad u duceysaan Falastiin iyo waliba dadka maanta ku waxyeeloobay Masjidul Aqsa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa ka codsanaya maadaama hayy qawiyin uu yahay inuu dhibaatada ka dulqaado reer Falastiin Yahuudana waxaan leenahay maalin wada dhimi doontaan dhibaatada ay leedahay ومسنتي داوداشن قروح بدل مقالدين نوسي شير غريا مالمهن مان is arkin follow like share comment inta insha Allah